بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومالين قروح بدن واحد بشوات طباء ذو الحجرة. إلهي خير كذا ينسي آمين آمين. إلهي واتكم هتصنت ما أنت مالين كلا تسيسي ومالين قروح بدن وكوبي لباتني لا أفري لاتني طول حيسة إميلا ترديدو ما أنت وحا عن سمين يا وحا لالي وحي عن قبان كرا وحن دوني إنان قبطو سيدا وقفي عن وحان إيمان يا قريقا anigoo og inaan fikri igu harin kartina aanay igu horan oo daalan haddii ilaahay yidhaahdo aamiin aamiin. casharkan waxa aan ku falanqaynayaa socodka magaalada barakaysan. wuxuu ku salaysan yahay cilmi baaris, wuxuu ku salaysan yahay dhaqaale weyn, wuxuu ku salaysan yahay soomaaliga dhaqanka Soomaaliyeed kor loo soo qaado. maanta dhaqanka Soomaaliyeed cadowga ugu badan wuxuu ka imanayaa qoysaska Soomaaliyeed ee Yurub iyo waqooyiga Mareykanka degan. carruurtii iyagoo yaryar yimi 30 sano ka hor ama ku dhashay cadowgu halkaasu ka soo baxaya, waayo carruurta maaha, waa hooyada iyo aabbaha. oo carruurtaas dhalay ayaa waxay u diyaar gareeyeen inay cadow ku noqdaan diinta islaamka, dhaqanka islaamka iyo jiritaanka islaamka. markii hore waxaan is oran jiray waxa ay ka tahay jaahilnimo waalidkaas carruurta cadowgaa korinaya, laakiin waxaan ogaaday inay ka tahay bareedh. jaahilnimo oo keliya aanay ka ahayn, bareedh ay ka tahay. marka qofka jaahilka cilmi baad ayaad usoo jeedin kartaa, waxbaad tusi kartaa. jaahilku dawo leeyahy, laakiin bareerku dawo ma laha. bareerku waa kibirku ka yimaadaa. qofku markuu bareerayo waxaan doonaan samaynaya, wixii cusubun baan samaynaya, wixii laygu yidhi baan samaynaya, faa'iide male. marka waa kuwii ilaahay diidayba, waxay ilaahay ku diideen subxaana watacaala waa kibirka. marka kibirkaan ku ogaaday, kuwaan bugaagta ka iibinayay, kuwaan carruurtooda wax u dhigayay, carruurtii aan wax u dhigayay, dadkii waaweynaaye Soomaalidan wax naga dhexeeyey, xiriir naga dhexeeyey, ama hadal naga dhexeeyey, ama nolol maalmeedku meelaan isku yimid, kibir baa ku jira. waxaan doonaan samaynaya, ixtiraamna uma hayo jiritaankayga, ciddaan ahay jiritaankayga uma hayo, waayo dhaqanka reer galbeedka ayaan jecelahay. taasaa la taagayay. marka taasna wax allaali waxa laga qaban karaa ma jirto. nebiyadii ilaahay soo dirsaday ee maskaxda ilaahay ka dhisay ee cilmiga siiyey ayaa aynu ognay nebi kasta waqtigiisa in yar baa raacday, ilaahay raalli ka noqday. marka wax laga qaban karaa ma jirto, waa ummad cadaabta kusii cararaysa. marka waxaan isweydiiyaa, soomaalida inteebaa 55 ama 60 milyan ee Soomaalida imsaa janno ka gelaya ayaan isweydiiyaa. maaha wax imika soo socday, ilaa 1920 bay ayay dhibaatadan samaynayeen Soomaalidu ay samaynayeen, laakiin marba ka dambaysa way sii bareerayeen. anuu xitaa waxaan xasuustaa 90-meeyada horaanteedii in dadku ay daacad ahaayeen sida iminka ay dhaameen. iminka ma jirto, iminka runtiiba lala dagaalamaya. marka ilaahay baa garanaya, laakiin marka aynu eegno wax badan ma gelayaan. wax badan ma gelay. dharka ha eeganin, xijaabka ha eeganin, qaabka ha eeganin, garhka ha eeganin, khamiiska ha eeganin. yaqiinta weeye, qalbigii baan daahir ahayn. haddii aan dhar cusub xidho oo nadiifa xidho oo jirkaygu aanan meedhin, yani jidh dhididsan oo udgoon aan lahayn, dhidid qarmuun, dhidid udgoon aan lahayn ayuu dhar wanaagsan xidhay. marka waxa weeye waa isla halkii. dharkaa cusubi way urayaan, saacad ka bacdi 10 daqiiqo ka bacdi way urayaan, waayo jirkaa loo baahan in la nadiifiyo marka hore, deedna dharka. Soomaalida marka yaqiintiibaa maanta aan nadiif ahayn, jirkooda qalbigoodii baan nadiif ahayn.
waa tii xijaabka xidhnayd, waa tii niqaabka xidhnayd, waa kii khamiiska xidhnaa, waa kii karka dheera, waa kii suudka xidhnaa, waa isku wada mid. marka dadkaasay la nool lahay oo dani naga dhexaysa. anu waan kasoo horjeedaa in laga go'o, waayo maskaxdaa xitaa ku korta. ilaahay wuxuu u baahan bani aadamka waxbay naga dhexeeya, kuwa muqaalafada xun leh, kuwa aan kaa garbaxayn, kuwa mustakbiriinta kibirka weyne ayuu ilaahay doonaya inaad la dhaqanto, waayo wuxuu doonaya inaad si caqli iyo xigmada loo dhaqanto. marka waan diyaar garoobay anigu, maskax ahaan waan diyaar garoobay, cilmi nafsi ahaan waan diyaar garoobay, siyaasad ahaan waan diyaar garoobay, falsad ahaan waan diyaar garoobay, dhaqaale ahaan waan diyaar garoobay. si waxa ay odhanayaan aan ugu jawaabo, waxay odhanayaanna ay halkay ka timi ayaan kasii diyaar garoobay. marka bulsho cusub, socodkan wuxuu ku salaysay bulsho cusub oo la dhisayo. aniga xaggayga 2 qof baan bedeli karo, qof baan bedeli karo, 3 qof baan bedeli karo, 1 qof baan bedeli karo, oo aan laakiin dadka aanan dantooda ogow. anigu shaqada soomaalida siyaasadda igama maqlaysid, xafladahooda igama maqlaysid, meelahay tagaan ma tegayo. dadkii aniga ii baahda hal qof u bedelo, 3 qof u bedelo, dadkii u baahda caawimadayda, waxaan aqaano cilmigayga aan la wadaago. kuwa kalena aan idhaahdo cadaabta kusii socda. haddii aan weliba karayo waan kusii riixi lahaa, waayo cadaabtu waa xaq, jannaduna waa xaq, wanaaru xaq. jannatu xaq, wanaaru xaq. taasaan anigu aaminsanahay, taana ilaahay baa yiri. marka halkaasaynu joognaa. waddankii imika somaliland ma tegi karo, soomaaliyana ma tegi karo, waayo cadaalad darada ka jirta. qofka cadaaladda ka shaqeeya waxaa la odhanaya war maxaa waalay, muxuu iska fadhiisto. laakiin qofka cadaalad darada wada waxaa la odhanayaa war lacag ha la siiyo, ha la taageero, qabiil ahaan ha lagu taageero, siyaasad ahaan ha lagu taageero. waayo xaqdar markay bulshadu, kelmad waxaa jirta carabiya oo casabiya la yidhahda. bulshadu markay isku xidhnaanteeda, casabiya qabiil maaha, casabiya waxa weye waxaa isku haya bulshada, waa sharciga, akhlaaqda, asluubta, kala dambeynta, qof kasta u ogaado halku xuduudiisa. aniga qofkan maxaa igaga gudban in lai sheega maaha, waa inaan anagu garto marka hore. taasaa ka maqan, taasaa dhammaatay. casabiyaan jirin. ibnu khalduun raximahullah 700 sano ka hor buu bugiisa ku qoray almuqadima. casabiyada marka ay bulshada ka tagto, bulshadaasi way khasaartaa, wax kasta way samaynaysaa. dhalmada xidhistii baa iska caadi noqotay, dhacii baa caadi noqday, tuuganimadii baa caadi la naga dhigay. kamarada loola soo horfadhiisanaya, siyaasi baa lagu leeyahy, tuuganimo ku soo baxay. waddankiioo la iibiyey, dhulka yare la iibiye waa la ysku qabsadaa. waddankii dhammaayoo la iibiyo, yuhuud laga iibiyey iyo imaaraadka ayaa lagu leeyahay waa caadi. marka saad ula dhaqantaa dadkaas, sidee baad ula macaamilaysaa waddankii aad la leedahay?